بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراليال كسو دواada إن شاء الله تعالى waa darsigeeni toddobaad iyo sidee loola macaamulooda jacaylka ama kalgacaylka walaalayaal alxamdulilah saan darsigan soo qaadanaynay aad ogeydeen waxaanu ku bilaawnay darsigii maxaan ku leedahay jacaylka asalkiisu wuxuu yahay iyo halkii uu la maray qofka iyo jacaylka dhabta iyo jacaylka aan maxaan ku leedahay xaqiiqada aan jacaylka maxaan ku leedahay hargabka iyo ka xaqiiqada sideeda alxamdulilah labada jacaylna waxaan u kala bixiyay jacayl shahwaani ah oo nafta ay jeclaatay nafta ka heshay oo aan daba galay ilaa aan ka gaaro meeshii aan anigu rabay mar alla markaan ka dan gaarana waa ku daayay jacaylkaasi iyo jacayl rabbaaniga waxaan uga jeedaa waxa weeye waa jacayl aad mid ugu horeysa aad adigu iskaaga bay noqonayso noloshaada kii ku anfici lahaa talabaadna waa jacayl ilaahay lagu dhawaanayo maxaana markaasi maxaan ku leedahay ku jira meesha jacaylkuna sidiisa walaalayaal tawfiiqda Allah na waafajiyo waxa weeye jacaylku waxa ugu muhiimsan inuu lahaado lahaansho waxaasaan jacaylahay haddaan idhaahdo oo aanan soo gadanaynin ama soo qaadanayn ama soo qabsanaynin waxaas waxba kuma hayo wuxuuna markaasi uu lahaanay waxaad ahaatid ee lagugu qoro adiga ee la yidhaahdo adaa iskale ayuunbaa maxaan ku leedahay waxa weeye jacaylkaasi فلذلك توفيق الله لنا وفجمانته وحن يدل المري لها صدح الريموت هدي لقليه جعلك هدي لقليه جعل كاسي وحوي هرت حقيقة نقنية تو الرئيسة طلباتنا وحن نقنية ووح أذيقا جعلك وبيرية وأذيقا أذلحاني سيد أو كل السعوني صدح الريموت وحوي وقتي إنا تجلسيد هدي جعلك وقتي جلسيد طلباتنا هذا العقل سيد تصدحاتنا هذا نف جلسيد وحن uga jeedaa fikir galisid arimahaas aynu ku soo xiran tahay qofka bari aadanka markuu rabo inuu xaqiiqada helo jacaylka dhabta inuu helo midaan dii waday waxa weeye aanu ka hadlaynay asbuuci dhaweyd anaha habeenka maxaan ku leedahay jacaylka dhabta u bilaabmay waa jacaylka dhabta habeenku bilaabmay waa habeenka maxaan ku leedahay reerka aad isku soo yeetaan labada qof ee isxorshay ee iska helay ee jeclaaday habeenkaasi ayaa maxaan ku leedahay u bilaabmaysa habeenkaasi wuxuu ugu bilaabay inuu habeenkii dhagaxii la dhigay dhismaha marka la dhisana waxaan nagu yiri markaas waxaan 7 arrimood bu jacayl ku leeyahay oo marka alla ma 7 arrimood ma 9 arrimood 9 arrimood mid ugu horeysa labadii qof ee maxaa dhacday labadii qof wax labo mid ugu horeeya waxa weeye markii si horeysay intaana helin kor wuxuu soo sameeyay uu soo dadaalay jacaylkuna sidiisana waxa xaqiiqadiisu dhab aad muuqanaysa dhabtiisu waa markuu u diyaar yahay inuu saddexdaas horo inuu horo saddexdaas inuu waqti siiyo inuu xoolo siiyo inuu naf iyo fikir iyo ham iyo qalmi siiyo Allah ilaahay tawfiiqda Allah noo fajiyo labadii qof way salaan labadii qof waa habeenkaas ay rajeynayeen noloshooda ay ku fikirayeen intaana maxaan ku leedahay aan markay qaangaari kadib habeenkaas la isku yimi alxamdulilah waxa ugu horeysaan dhimada ugu horeysa waxa weeye labada qof way rabaan inay is arkaan waa rabaan laakiin inay iska arkaan ta horeysa ta labaadna waxa weeye jacaylku wuxuu sameeyay labada qof markuu isku daray labada qof waxa weeye ay yimaadaan mid walba wuxuu sameeyaa schedule-kiisi ama nidaamkii uu hore u waday oo dhan uu ka tagaya waxa u bilaabmay nidaam cusub labada qof markay isguursadaan asxaab bay lahaayeen meelay aadayeen bay lahaayeen iminka wixii ka dambeeyay walaalayaal waa laba qof oo isku xiran wada cunayaan wada cabayaan wada seexanayaan wada noolaanayaan intii oo dhan marka maxay noqotay schedule-koodii wuxuu noqday schedule midaad walaal aad iyo aad baan ugu xumahay markuu ninka qofka ah oo isagoo reerkii keenay siin waayo waqtigii siin waayo xoolihii siin waayo maxaan ku dhahay fikirkii la joogi waayo waqtigii schedule-kii si ka dhigi waayo schedule-kan waxa weeye noqdo looga jeedo jadwalkiisi ama waqtigii aad saxaabad lahayd waad ka go'aysaa xaafad baad lahayd hooyo aabad ka timi reerka waad ka timi maxaad uga timi waxaad uga timi labadiinu inaad islahaataan inaad wada fadhiisataan inaad wada cuntaan inaad wada jibs maxaan ku dhahay inaad isku kalsoonaataan inaad dar yeeshaan inaad is ixtiraamtaan intii oo dhan bay hoos gashay
arrinka labaad waa iskaajulka arrinka saddexaadna waxaan idhi waxa weeye qofku labada qof markii ay meesha iskugu yimaadaan labadaa qofba qaladka uu qofka kala galo uma yaqaan qalad maxaa dhacday jacaylkaa kafargaraynaya intuu jecel yahay uma malaynaya qaladkaasi inuu qalad yahay qalad laga yaabaa lacalla waxaa ka waday sidaas tiibaa qarinaysa arrinka afiraan galaad waxa weeye waqtiga habeenkaas la isla kulmo habeenkaasi waqti waa waqti nolosha dhan taariikh soo geli doona sidaas darteed aragtida labada qof markay jecel yihiin inta isla qabanayaan inta guriga wada joogaan ma dareemayaan walaalayaal aan ku dadaalo waxaa sidee loo macluumaad doonada ay ka mid tahay wax weey walaalow shaqadii baad ka soo rawaxday reerkaaga soo noqo la fadhiiso adigana walaalay mar alle markuu yimaado odaygu wixii ka hor dhamee mar alle markuu yimaado la fadhiiso sidaasaad loola macaamulada jacaylka fadhiga aad wada fadhinaan waxa weeye fadhigaas wuxuu ku tegayaa haddii jacayl uu meesha jiro ma dareemaysaan taasa meesha ku jirta arrinkaas maxaan ku idhahdaay shanaadna waxa weeye adigu haddaad qofka jeceshahay qalad kuma qaldamaysid waad iska ilaalinaysaa maxaa dhacday waa jeceshahay haddaad jeclaatayna maxaa dhacaysa haddaad jeclaasayna mar rabdi qofku jecel yahay mar rabo inuu ka cadhaysiiyo qofku markuu jecel yahay waana darsiga waana qaybtan sagaalaade wuxuu mar walba jecel yahay inuu ka farxiyo qofka falidaalika wuxuu iska ilaalinayaa walaalayaal dhibaatada guryaha ka jirta ee maanta laysku buuqaya ama layscaaya ama waa markii jacaylku ka baxo meesha laana qof aad jeceshahay uma quudhid hadal xun ayaduna haddii ay ku jecesha kuma quudhaysa hadal xun lidaalika waa qaybta shanaad weey arrinka shanaad weeyo wuxuu qofku jecel yahay iska ilaaliyaa mar walba inuu hadal xun yiraahdo waa arrinka shanaad arrinka lixaad walaalayaal wuxuu mar walba qofku la nool yahay wuxuu dareemayaa inuu yahay tafaa'ul wax la yiraahdo jiro waxa weeye hamigiis wuxuu rajaynayaa inuu qoftani mustaqbalkiisa noqoto mar walba wuxuu rajaynayaa khayr baa soo socda ayaduna marka waxay rajaynaysaa marba haddii odaygaasi ay ku xidhan waxay leedahay ilaaha idankii intaan anagu wada noolahay khayr baa inoo soo socda tafaa'ul laana maxaa dhacday tafaa'ul wuxuu ku dhacayaa optimistic baa dhigay muxuu ku dhacayaa waxa weeye ilaan qofkii maalintii aad baaliqday qofka aad ka fikiraysa way noloshaada maantana ilaahay jalla wa ala gacantu ku soo galiyay falidaalika adiga wixii ka dambeeyay waxaad rajaynaysaa noloshaada iyo mustaqbalkaaga qofkan ku xidhay ninka raggaana adiga sidaas si leeg adiguna maalintaad guursatay kadib waxaad istiri maanta wixii ka dambeeyay noloshayda waxay la dhisaysaa ilaahay jalla wa ala waa siduu inoo sheegay litaskunu ilayha wa tii aad ku degi lahayd way tii aad ku degi lahayd mustaqbalkaaga toosin lahayd nin walbana qofta ka dambaysa ayaa toosisa tiibaad adiga qalbigaaga soo gasho waa arrinka maxaan ku idhahdaa lixaad arrinka talabaadna waxaad rabtaa inaad taabatid inaad dhunkatid inaad shumisid ka socdo maxaad rabtaa marka waxaad jeceshahay dadaad iskaba dhaaf labadan qof ay isqabta adiga haddaad wax banaanka ka soo iibsad oo aad iyo aad u jeceshay midda ugu horeysa waxaad rabtaa inaad lacag hurtid fikir hurtid waqti siisid soo iibsatid aad keentid guriga maxaad ku dhaqaaqaysaa marka gacantu ku soo galay midda ugu horeysa waxaad rabtaa inaad taabatid waxay rabtaa noqoto wanaag maadaama aad ku soo gacan galay waxaad rabtaa inaad taabatid talabaadna waxaad rabtaa inaad shumisid falidalik nabigeena subhanahu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi labada qof ay isguursadaan waa laba aan waligood xumaan aan aadin lidalik ilaahay uu isku xalaalayay mar alla markii ay isku dhawaadaan waxa ugu horeysa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam barak inuu halkaas qabto isaga gacanta saaray gacanta wajigeeda markuu saaray labada ragcadood tukadaan gacantu madaxiisa saaray markaas uu duceeyay Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubiltu alayhi ilaahu khayrkeedan ka bari khayrka aad u abuurtaan ka bari sharkeedan ka bilayst sharka maxaa ku laada abuurtay lidalik waxa weeye duco ayuu ku bilaabayaan alamat wa arrinka maxaan ku idhahdaa waxa weeye waa tii toddobaad arrinka maxaan ku idhahdaa sideedaadna maanta waxay ka dambeeyeen labadii u asalan waxayna isku heleen khayr iyo barako lidalik waxay noqonaysaa inuu min maalintii la isguursaday ilaa iyo maalinta haddii lagu camal falo insha allahu tacaala darsigii waxaan gali doonaa haddii ilaahay idhaahdo sidee loo macaamuloonayaa guur sidee loo macaamuloonayaa nolosha
jacaylka iyo kalgacaylka iyo noloshaba guurkaba siday u tahay ayaan insha Allah ta'ala bilaabayna intaan bilaabin kor maanta waxa weey arinka toddobaad ah ayaa daa'iman wuxuu ka fikirayaa isagoo ka maqan oo shaqadii jooga uu ka fikiraya qoftii uu jecel yahay maxaa dhacay uu jecel yahay ayadii oo maxaa ku dhahay jikada ku jirta oo maxaa ku dhahay cuntadii karinaysa ayay waliba aqladeeda ku haysa maxaa dhacay way jecesha falidaalika tawfiiqda Allah na waafaji wali maan bilwaabin oo waxa dhacday walaalayaal tawfiiqda Allah na waafaji habeenkana ni sheegayo wa habeenku bilaab mayay way habeenkaas uu bilaabmay goormuu dhamaanaya walaalayaal haddii aanu ilaalino shan arrimood haddaanu ilaalino kalgaceelka haddaan ilaalino kalsoonida haddaan ilaalino maxaan ku dhahay ixtiraamka haddaan ilaalino daryeelka haddaan ilaalino xidhiidhinta haddaan ilaalino wuxuu noqonayaa habeenkaasi wuu bilaabmay wuxuu dhamaanaya ma dhamaanaya ilaa aan ka dhimanin xataa wax lacalla laga yaaba odayga hadduu dhinto uu maxaan ku dhahdaa uu dhinto wadaadii wali iyadoo cilmihii la joogto wali ku fikiraysaa odaygeygii fiicnaa sidaas leg xataa hadday ka dhimato wali waxay ku fikireen jacaylku maaha wax dhammaade waxa weeye jacaylka ilaa qabrigu uu kala reebaa dadka laakiin ma dhammaado arrinka toddobaadka sagaalaadna waxa weeye walaalayaal tawfiiqadan qofku jecel yahay weligii wuxuu jecel yahay inuu ka farxiyo ama hadiyada u keeno ama kalmadii wanaagsan ay yiraahdo qaybtaasi waa qaybta romansiyada waa soo jiidasho waxaad ku soo jiidanaysid romansiya la yiraahdo romansiyadan lagu sheegay maaha wax suuqa laga soo iibsado waa wax aniga noo saar oo aan rabno inaan ku dhaqaaqo maxaa laga rabaa darsiga soo socda insha Allah ta'ala waxaan bilaabana sidii loo bilaabi lahaa kalgacayl sidoo ayaana bilaabaya walaalayaal tawfiiqda Allah na waafaji ma ninka bilaabayso qofta dumarka bilaabaysa jacaylka wax la yiraahdo jacaylka waxa bilaabay waa ninka ragga ayaa beeraya qofta dhulka qofta maxaan ku dhahdaa dumarka waxa weeye waa qoftii lagu beereeyay ayada waa beertii ayaa ka soo baxay Soomaali marka aad beertid hal kaliyaad ku beeraysaa mar alla markaad beertid geed bay ku soo bixinaysaa geedka jacaylka ah ayaa waxa weeye midho badan ayuu ku siinaya waxaad ku beertidna qofta dumarka ayaa la helaa falidaalika tawfiiqda Allah na far sagaalkaasi waa sagaalkii waxa weeye qofku uu dareemayo markuu jacayl qabto laakiin wixii ka dambeeya ayaan insha Allah ta'ala bilaabayna qofkii laga ribayo inuu bilaabo sidoo u bilaabayo sidoo ula macaamiloonayo kalgacaylka ayaan insha Allah ta'ala darsiga ku xiga aan bilaabi doonaa waa darsigii toddobaad iyo jacaylka sidee loo macaamilooda intaasaan naga tagay insha Allah ta'ala barakallahu fiikum wa idin wada salaamay dhamaantiin ilaa ka soo gaareen darsiga soo socda هنا يلوبين إن شاء الله تعالى لا تجرسان سبسكرايب كرسان عندي لهي توفيق الله نوفجه وحنسوق نهاي خير يباركوا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.